wasiirka wasaaradda beeraha dhirta iyo daaqa dowlad goboleedka Galmudug oo ay weheliyeen agaasimayaasha guud ee wasaaradaha biyaha iyo warfaafinta ayaa kala qayb galay guddoonka golaha abwaanada Soomaaliyeed dhagax dhiga goobtan oo loo asteeyay inay kulansato agabka dhaqanka goobo dalxiis iyo kayd hidaha lagu ururiyo looguna magac daray beerta abwaanada oo duleedka kaga taal magaalada Dhuusumareeb ee caasimadda Galmudug. abwaan xirsidhuux oo ah gudoomiyaha golaha abwaanada Soomaaliyeed ayaa ugu horeyn ka waramay hal abuurkan iyo hiigsiga fog ee abwaanadu ka leeyihiin beerta dhaqanka iyo dalxiiska ee abwaanada Soomaaliyeed oo aan rabno inaan ka hirgelino dhowr arrimood oo isuwan midda koowaad ay tahay bilicda muxuu ahaa iyo dalxiiska Galmudug tan labaadna ay imaanayso nolosha abwaanada Soomaaliyeed oo muxuu ahaa helaya hadii alla yiraahdo il dhaqaale oo ay isticmaalaan halkaan ay u noqon doonto wasiir meeshan waxaan ku xarayn doonaa hadii alla yiraahdo ugaarta noocyadeeda kala gedisan marka laga reebo kuwa wax cuna oo bahalada oo dhiig ku noolka sidoo kale waxaan rabnaa inaan ka sameeyno guryo iyo meelo cafeteria oo dadku ku nasan karaan sidoo kale waxaan rabnaa in aan sameeyno dhammaan agabka dhaqanka meel qoftii rabta ay ka heli karto hadii alla yiraahdo waxaan rabnaa inaan sameeyno berkado oo lagu dabaasho oo qayb dumarku ay leeyihiin iyo sidaas oo kale meel wiilasha sidaas oo kale iyadana si looga helo nasasho agaasimayaasha guud ee wasaaradaha warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska iyo wasaaradda tamarta iyo biyaha ayaa iyana ballan qaaday taageeridda goobtan waxaan rajayn doonaa inaan dadaalkeena ka qayb qaadan doono sida loo horumarin lahaa beertan inkastoo ay joogto wasaaradda beeraha annagana waxaan ka qayb qaadan doonaa wixii aan awoodno oo tabarteena ah waan arrin muhiim ah waxaan dhihi karnaa waa innovation cusub iyo qorshe cusub oo ay abwaanadu noo keeneen waxaan aad u bogaadinayaa in hamiga iyo himilada ay hadda abwaanadu horkacayaan oo ay ku doonayaan in Galmudug laga hirgeliyo buqca kulansata dhaqanka hidaha iyo dalxiiska taasoo soo jiidan doonta dalxiisayaasha iyo maalgashadayaasha iyo cid walba oo daneeyayaasha dalxiiska ah inaan maanta halkan ka dhagax dhigno ka wasaaradda warfaafin ahaanna waa dhiirigelinaynaa wixii tabarteen iyo taageeradeena ah ayaanu la garab istaagaynaa ugu dambeyn wasiirka beeraha dhirta iyo daaqa dowlad goboleedka Galmudug Axmed Nuur Xaaji Cusmaan ayaa golaha abwaanada Soomaaliyeed ku amaanay curinta mashruucan ballaaran oo wasaaradda uu sheegay inay gacan weyn ka siin doonto ka wasaaradda beeraha ahaan waan garab istaagaynaa beertan waana kala shaqaynaynaa wax kasta oo aan ku horumarin karno annagoo runtii sidaba dadaal badan ku wadnay sidii loo dardargelin lahaa beeraha Galmudug runtii Galmudug waa dhul beereed waliba qani ku ah wax soo saarka waa dhul dihin ah biyihiisa ay aad u dhow yihiin laakiin u baahan in la soo saaro waxaan leeyahay insha Allah waa ka wada shaqayn doonaa wasaaradda beeraha iyo wasaaradda biyaha iyo wasaaradaha kale ee qaybta ku leba in beertan ay noqoto beer kulmisa dhammaan howlaha beerihii dhaqankii dalxiiskii insha Allah waxaan ugu mahad celinayaa beeraleyda Galmudug oo ay waliba qaybahan cusub hadda ragga abwaanada nagu soo kordhiyeen iyagoo ka duulaya hadalkii ahaa madaxweynaha reer Galmudug warmahoodii yaanbay ka tunteen runtii maanta waad u jeedaan Galmudug waxay u soo jeesteen beerihii waxay soo raaciyeen dhaqankii iyo dalxiiskiiba waxayna noqon doontaa meel insha Allah horumar badan looga sameeyay Cabdullaahi Warsamar oo warbaahinta qaranka Dhuusumareeb.